tamarta horta micnaheeda waxaa lagu jeedaa mataqaanaa awoodda shaqo lagu qaban karo taasaa tamarada lahaa. noocyada tamaraha tamarta nuclearka ayaa jirto oo ah atomka gudihiisa tamar ku jirto ayaa laga faa'iideynayaa. tamarta laga heli karo dhuxusha dhagaxda adduunyada in badan meel ku soo martay ilaa haddana waa la isticmaalaa. tamarta biyaha ka imaan karta webiyadoo la xiro biyo meel dheer ka soo tuurmaayo oo ku dhacayo mataqaanaa marwaxadaas markay wareejiyaan korontaa dhalinayso. tamarta qoraxda Soomaaliya oo kale waa wax aad iyo aad faa'iido u leh. tan dabaysha kaloo jirta xataa mid hirarka laga faa'iideysan kara badda waxaa soo galaya mataqaanaa karanta oo biyo ah oo socdo ayaa mar imaanaya marka dambe gadaalo u laabanaa. laabashada soo socodka aggressive-ka iyo laabashada waa wave energy waa laga faa'iideyn karaa. wadamo badanaa ka faa'iideysto. Soomaaliya waxyaabaha aad iyo aad uga liito waxaa ka mid ah tamarta dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin iyo tamarta maaragtay la soo saaro waa kala duwan yihiin. Soomaaliya waxaa la rabaa wadan inuu noqdo sida adduunyadoo kale wadan aad iyo aad tamarta warshadeyn ayaa loo baahan doonaa. warshadeyntaas tabar cunid waa micnaheeda. shaqooyinka socdo iyo wax kastoo warshado ku beesgaraysan waxaa loo baahan tamar. xaaladda guud ee wadanka waxay noqonaysaa wadankii ma hormarayo haddiiba korontada la la'yahay oo meelaha qaarkeed ayna ka jirin. sida ugu dambeysa ay u saameynayso waxa waaye the quality of life, tayada nolosha qofka Soomaaliyeed waxa waaye waxay la liidanaysaa tamar yarida. saameynta ugu weyn waxay noqonaysaa wadan aan horumarin. wadanka warshadaysma inuu warshado gaaraa la rabaa. sida bani aadamka ugu baahan yahay cunto, guri uu jiifto iyo mataqaanaa waxyaabaha basicada bani aadamka sida biyahoo kale oo u baahan yahay ayaa tamartana loogu baahan yahay. hadda internet la'aantiis dadka ma socon karaan. waxay u egtahay inaan la socon karin. maxaa noloshii waxay la qabsatay internetkii at the end of the day tamar u baahan yahay isaga naftigiisa inuu shaqeeyo. marka xasilooni iyo waxaa mar kasta isla soconaya tamarta la heli karo wadan. xasiloonidu waa soo fiicnaanaysaa markay tamarta badato. maxaa dhacay? warshadihii ayaa shaqeynaya. wadankii odila operational noqonaya. wadan shaqeynaya dhinac kasta loo shaqeeyo. xataa beeraha waxay u baahan yihiin tamar aad iyo aad u badan. xasiloonin waxaa la helaa dadka markay rajo yeeshaan ay shaqo kala aadaan ayaa xasiloonin la helaa. intay shaqo la'aan jirto xasilooni wadan kama jirayso. mar haddayna oolin oo weli tamarta ay yar tahay micnaheedu waxa waaye waa wada fursado iyadoo idin maxaa dhacay wixii lamaba bilaabinba. marka qof kasta ayaa hunguriyeyn kara inuu aag tamar inuu galo si uu damaanka yaala qayb ka mid ah mataqaanaa supply-gii uu keeno. shirkadaheena Soomaaliya oo kale hadda jooga ee tamarta ka shaqeeya waxay JV la gali karaan, joint venture ay la gali karaan shirkadaha imaanaya ee soo saaraya gaaska Soomaaliya ka soo saara. marka haddii gaaskaas la soo saaro shirkadihii Soomaalida opportunity ayay helayaan. kow inay ka qayb galaan soo saarka gaaska. labo in qaybta koronto samaynta iyo waxaas iyo ayaga ay la wareegaan. fursadaha kale waaweyn waxaa ah mataqaanaa solar energy actually. sidoo kale dabayshana waa sidaas. fursado kale waa iyadana. annaga qayb waxaan ka noqon karnaa tamarta nuclearka, soo saarka uraniumka iyo thorium. labadaasba Soomaaliya waa available, khaasatan iyo uraniumka gobollo badan ay ku dhex jirtaa. gobolka ugu weyn waa Galmudug. waxaa kaloo laga faa'iideyn karaa geothermal, tamarta dhulka marka la sii galo gudaha la sii aado kulaylka waa soo kordhaa. marka kulaylkaas mararka qaar biyaha dhulka ku dhex jira ayuu kululeynaya. waxaa la suubinaa turbine ayaa u wareejinaa. turbinekaasna koronto dhalinaya. korontaa laga dhaliya geothermalka. waxaa u raqiisin karnaa kilowatt hourka Soomaaliya oo raacda policyga tamarta ay ka dhigto energy mix oo aad iyo aad u kala maaragtay diverse ah oo kala fog. korontada biyaha laga soo dhaliyey oo biyo xireenada ah, korontada ku timid geothermalka, midda solarka lagu sameeyey, midda dabaysha laga sameeyey, mid kale oo hirka badda laga samayn karaa. hadhow dambe haddii hydrogen loo gudbo korontada ka imaan karto kale. waxyaabahaas dhammaantooda waxaa la sameynaya grid oo national grid la subina. waa shabakad wadanka dhex marayso oo korontadii la soo dhaliyeyba meesha lagu shubaa. iyadaas marka ma dhacayso xamar in ay garoowe ay ka raqiisan tahay xamar raqiisan tahay.